qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hay karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar laba thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyay qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxa ka bax caalamka la dadku leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini aadamka ah inuu jidhkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad uu loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameey jiray ma jirin nin yiraahdo inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamadan yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub la ciyaaraya dadkii oo dhan kooba bay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adneys weydiinin subaxii markay iskuulka isugu timaadaan waxa tirahdaan xalaya badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo Ilaahay rumeeyay subxaanahu wa ta'ala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yar aad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagu talagalay inaad ka faa'iideysato waxaad ogtahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtiga yar aad joogtay wixii aad qabatay in lagu xisaabin doono yaa model ku ah markaa yaa tusaale ku ah Ilaahay baa quraanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah إلهي سبحانه وتعالى أنتو أنبياء كصور رميبو وحليهي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا سبا إلهي سبحانه وتعالى وكوي ألا هنونيي فبهداه مقتده هنون كودا كودا يبا إلهي سبحانه وتعالى هنون كودا يعني السلوك كودا نقن كودا qaabkay u fakarayeen qaabkay u cibaadeysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakarayeen iyaga kaga daydaba ilaahay quraan uu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran
oo dadka la yidhaahdo akhristoo faahfaahsan laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kastoo uu soo dejiyey rasuul baa la soo raaciyey rusushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koow waxa la faray inuu yahay wax la samayn karo fii maqduuri lbashar bini aadamka awooddiisa wax ka mida inuu yahay inuu ariiqa saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay ciddii tilmaami lahay walidalik waxaynu ku celcelinaynaa leenahay waa inaynu si fiican u daraasaynaa u garannaa ciddaynu ku dayan lahayn ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alle dad abuuray waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu moodhal u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhammi uu ku dayanayay inuu noqdo waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay qofkaan ilaahay garanaynin waa wax magarato qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax magarato afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa aqoonta waxay ka warramayso iyo waxay tarto socaynkaa maaha inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa haddii iminka laydin yidhaahdo combyuter science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30 kun 40 kun oo karawne bishii wada combyuter science baynu gelaynaa laakiin hadduu marketku isbedelo laydhaahdo saxaafadaa ka qaalisan saxaafadaad u guuraysaa saxaafadnimadu iyo kombyuuternimadu ma ahayn fiicnaanta laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysaa iyada ugu qaalisan oo ay jannay goysaa yani life span-kaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa wakhti aad dhabarka aabbaha iyo hooyada ku jirtay wakhti aad caloosha hooyada ku jirtay wakhti aad dunida korkeeda sarrayd wakhti aad xabaal ku jirtay kadibna waad ka soo baxaysaa waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa inta ugu qaalisan bay ka tartaa hadday tahay noloshanaad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyadaa tilmaamta hadday taa aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato quraanjada cilmi ku saabsan iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan waxa kaloo la mid ah cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka silaada ku tuko waxaad sileedahay talow xaggaad ku tukataa markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaahdo musqusha agteeda aan ku tukanno jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa sababtu waa maxay waxan baad la khajilaysaa kula yeeliita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay safkii sax ahaa inaad taagantay iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person dhaqan ahaan aqoon ahaan waxa la baranayo wax kastaba inaad adigu tahay the right person idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin oo aan sodhan xijaabka waxa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad jiqiska soo siiso iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo dhanna surwaal ka yara ah
dhanna fanaanad yar ka ah meelahana aad masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin siduu ugu weeye u qaado aragna you are the superior adaa ugu sarreeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay the right way baa taagantay mithaal basiitan ku siinaya saxaabadii nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu ilaa iyo laga gaadhayo china iyo indonesiya iyo waxa la mida dhulal badanoo dhulalkaa ka mida kumay furanin dagaal dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakerayeen iyo waxay basharka u keeneen waxay ku furteenoo kaaga filan rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii bershiya eeraan ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay qaadisiya meel ku taalla haatan waddankan ciraaq loo yaqaano waa intaan madaa'inna ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxa ay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hala wada hadlee sacd ibn waqaas saxaabigii la odhan jiray wuxuu u diray saxaabi la yidhaha ribciy ibnu caamir ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxaa la dhigay red carbetka wada taqaanay soo maaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacase la dhigo soo ma taqaanin ee ay soo dul socdaan red carbetiskaasaa meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halkaa ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baa ka muuqda nin dagaalansan wuu soo socday waxay yidhaahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idiinma imanay idinkaa ii yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita haddaad rabtaan inaan u tago waa u tegaya haddii kalena waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanima haddad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan laakiin ninka muslimka ay qowlkiisa ku dhaqmaa saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama dambaysiyo waxma khiyaameeya haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita haddii loo baahan yahay waan u tegaya boqorka waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red carbedka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigu mid ku xidhay bay yidhahdaan culamada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su-aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakerayaa dadkan ma gaaja waddankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarno dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray brofesorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigayaa
adigana waxa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay waa wax faal xun waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kumaa tahay waa inaad garataa adigu muslim baad tahay kuwa kalena waa gaalo taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan taa macnaheedu waxa weeyaan adaa marada aad sidataa maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato adaa moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo iyaguna way qaawan yihiin waa meel laga naxaabay joogaan waa hilib wadhan meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee dariiqa sawaabka rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyda yacni say macquul u tahy hadduu kani gaalnimo ku faanayo ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanayo ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda ku soo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida moodhal u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin masaladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee moodhalka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama combyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka cultureka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adiga macallin inaad u noqoto lagaaga baahaya waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaan lagaaga baahaya inaad dunida macallin ka noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shababa qaadan kara waxaan ku soo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka biniaadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo
hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay. nebi daawuud, nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamisoo dowlada xukuntay. hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka warramayaa rusul. hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaane xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo, ummad xuquuqdeeda loo raadiyo, rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay. nebi muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah. ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo, an irsil maciya bani israa'iil. haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo si uu noolan laha, ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay. nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay. haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday, rusul baa ilaahay tilmaamaya. nebi yuunus oo xuutadi liqday oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray. haddaad rabto cid dagaalyahanoo ummaddoodii u dagaalantay oo xoraysay, rusul baa ilaahay ka warramaya. nebi daawuud oo jaaluut la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyey niman gaalo ahaa. yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay. nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ah ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay. sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyahy ku dayasho fiican ciddii alle subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobaya oo ilaahay inooga digaya walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaq. ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay, idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina. cid idinka liidata ha ku dayanina. ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo, waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda. dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo waxbixin leh oo ballan oofinaya oo hoom weegiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydabaa muhima. markaasaa tusaalii dhabtaa noqonaysa. laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato, kalaaskana aad jartid, macallinkana been u sheegtid, saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid, kana aad dulmidid, markaa tusaale noqon maysid. tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay. hadday waxbarashatay, hadday dhaqantay, hadday ballan tahay, hadday hadaltay iyo run la sheegayo, qof street forward markaad noqoto, qof toos u socda. moodalka la raba islaamigiina waa kaa. walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digayaa inaynan odhanin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun. inaynan bad example ka noqonin diinta. waxaan aad uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno oo nidhaahna ha soo gelina. waayo diintu hadday innaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo gala say suurtagal u tahy. waa in dadka diinta aynuugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeenu inuu dadka dacwo gaadhsiinayo. waa laga yaabaa afafku inaynuguba adag yihin, inaynan si fiican ba isu fahmin, laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaagaa yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay. meeshaad ka shaqayso, meeshaad wax ka baranayso, meesha aad joogto, cidda aad la saaxiibka tahay, markaad si quman ula dhaqanto, qumanaantaadan baa dacwada
sheegaysa warkaale ilaahay rumeeya ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina ee waxa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga waxa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyay Norwegigu saacanka maaha waayo hoy baa la idin siiyey waxa cuntaana waa la idin siiyey waxbarashana waa la idin ogolaaday intay doontaba ha noqotee idan waynaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siino diin baynu sidnay islaamnimaynu sidnay dhaqan fiican baynu sidnay wixii wanaagsanaa aynu sidnaynana waa inaynu siinaa oo man lam yashkur الناس lam yashkur illah waynaynu dadka u mahad celinaa laakiin mahad celku maaha inaynu inana barro sida sistamkooda loo buriyo sida loo xado sida been loo sheego sida wax la isu weydaariyo ka maaha waa inaynu ugundamkooda hanuunin karnaa iyagu maanta ugundamkoodii way u taaglaayeen sigaar iyo khamri iyo suuq iyo baliya baas iyo waa in iskuulka 5 hablood ama 5 wiil oo muslima ay degan yihiin waa in iskuulka dhaqankiisa bedelaan waa in iskuulkani noqdaa model la yiraahdo markaasi waxa loo baahan yahay in dadka ajnabiga muslimiinta iskuulada lagu badiyo loo qaybiyo waa inay noqotaa waayo waa model iskuulka wax taraya laakiin haddaan noqotaan inta meel ku ururtaan iskuulka joogtaan inuu aqoonta ka hooseeyo iskuulada kale oo dhaqanka ka sii liito oo waxbarashada ka sii liito oo damiinimada ka sii liito meel kasta u sii fool xumaataan marka islaamka aad ceebaynaysaa weeye waxa la rabay meesha 5 ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaan noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kan oo kale in la helo iskuulada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahanay 10 arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo u toosi karo waxaynu markaa isugu nimi wax weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno ku dayashadaas inaynu muujin karno in maanta laga bilaabo garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa inventionka dadka u keen lahaydeen idinka la idinka rabaa markaa maanta laga bilaabo idinka dadkii dadku ku dayan lahaa marka idinka la idin rabaa inay noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara oo adoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadatan dariiqa saxa u tilmaami lahaa markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale يعني إن تسفير كان نقطة ومضى مسلمين تكلم له بهاي أما ما أنت إن بدنا مسلمين تكمل قاب كي وغرنا قمان هلك كاني و very bad example سبيكين مسلم كي كدن بيوردن إيه دين تحمبار صناعين إيه كلجر كودي دقن كودي أركتدو ديبا very bad example سبيكين waxaan ku soo koobaya markaa dad ba idinka u fiican ha jabina uun yani dad ba idinka u fiican intaad muslim tihiin laakiin cuqdadana infan dareera baan hay iyo kan baan hay iyo minority baan hay iyo waa la xaqiraya waa la yasayada ka baxa infan dareera tahay muslima baa tahay hogaamiye baa tahay waxyigii samada sida baa tahay qofkii la rabay dadku inuu ku daydo baa tahay daadis waxa la rabaa inay adiga ka dhaadhacdo hadaan adigaba ka dhaadhacsanayn dadkaba dhaadhicin kartid laakiin adigaan rabaa inay ka dhaadhacdo inaad tahay infan dareere muslima oo kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay kii siday baa tahay then you should be a good example. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كون مريض شفينا محاضرة يقين في المسجد إننا أنا وانفع كل حقنا نقدم وقتي صلاة ولا ضعفي وقتي محاضرة ولا سؤال من الدكتور وحن أسوق علينا سؤالا أنت اسمعوا على مرة ساعدنا إن شاء الله. بس المرة ربنا قابني محمد سؤالي من يرضوا
kuwii haddaba bal qoslaya hadda way kasii dareen iska wada lagu maqlayaa meel yare waxay leeyihiin 3 su'aalood oo kubadda ku saabsan laba waa isku mid waxayna leedahay nin dhalinyaro haddii uu koox u ciyaaro oo dee uu noqdo xidig sidii David Beckham laga sheekeynayo oo kale ma dambi baa ku jira waa tan labaad su-aasha labaadna waxay leedahay waa islaayadii waa banoonigii laakiin gabdhaha muslimiinta inay banooniga ciyaaraan lafteeda ma dambi baa ku jira waxaa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay ma inaad cayaartaabaa dunida u timid yani maxaad u nooshahay qofku hadduu garan waayo wuxuu u nool yahay dan waxaad qabataba garan maysid sheekh zandani la yidhaha cabdilmajiid zandani xafidahullah ayaa maalin maalmaha ka mid a isagoo la hadlaya nin brofessor oo ingiriis oo caana ayuu wuxuu weydiiyey war ishu maxay tartaa buu ku yidhi markaasuu yidhi ishu waxan bay qabataa saan bay qabataa wixii buu sharxay human physiology-ga wixii lagu sharxi jiray ama human anatomy ayuu sharxay markaasuu haddana cudwi kale weydiiyey halkani maxay qabataa wadnu muxuu taraa kani muxuu taraa markii dambe wuxuu yidhi cilmiga kan cilmi alwadaaif alacdaa baa la yidhaahdaayo wuu sharxay wax waliba waxan bay qabtaan saan bay taraan saan bay taraan wuxuu weydiiyey waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka midii waxa uu taro ma shaynimadiisuu qiimo ku leeyahy mise jidhku waxu taraa baan ku weydiinayaa buu yidhi deetana wuxuu yidhi ishu hadday keliya meel taallo waxba faa'iida ma laha buu yidhi waxay wax tartahay markay dee jidh ku jirto oo jidhkay waxu taraysaa ku arkaya waxaan ku weydiiye buu ku yidhi qofka oo dhan markaad jidhkiisi iyo ishiisi iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu talagalay sheegtay ishii wixii loogu talagalay dhegtii sheegtay lugtii sheegtay qofkoo isku dhan maxaa loogu talagalay iska aamusa wuxuu yidhi taasi waa falsafad wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay kuu dartaa kabtii buu sharxay wuxuu yidhi waxan bay qabataa dhibta iga ilaalisaa saatan baan ugu socdaa caynkan bay qabataa kabtii buu sharxay markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ma waxaad leedahay iminka kabtaadaa kaa qiimo badanoo kabtaadu waxay tartana waa la garanaya adigu waxaad tartana cidi garan mayso yani waxa lagu abuuray adiga cidi garan maysa miya kabtaadan waxa loo sameeyeyna waad garanaysaa miya yani qofka haddii hadafka nolosha uu ka lumo waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaayoo dhan noloshoo dhan baa dhinac ka rarmaysa markaa yani waxay isweydiinta le war maxaad u nooshay inaad isweydiiso wakhti yar baad horta haysataa 60 sano 70 sano meelaha kan laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay waa un wax kontaneeyo sanaa baad haysataa this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso kontonkaaga sanama waxaad doonaysaa inaad boodboodo markaad kubaddu unu cayaarto u noolaato kubadda waxaan kuu ogolay inay noqoto waxaad jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato laakiin maaha wax loo noolaado in kubad la cayaaraa laba ma kala fahmaysaa maalan maamaada ingiriisku maxay odhan jirtay waxaa wax loo cunaa maxay in la noolaado laakiin looma noolaado in maxay in wax la cuno socaynkaa maaha cunadu faa'iiday leeda waxaad wax u cunaysaa inaad ku noolaato laakiin ka warran qofka u nool inuu wax cuno uun noloshiisaba ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uunoo fadhiyo nolol maaha dee taasi waxaa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka warran haddaad u noolaato un inaad cayaarto oo kubadda erido cayaartu hadday tahay taa aad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roonti ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo wallahu aclam جزاك الله خير شيخ سؤاله way badan yihiin laakiin waan soo yareynaa laba su'aalood oo isku dhow waxay leeyihiin qof wuxuu leeyahay maadaama sheekhu yiri salaadii iyo meel qofku uu la dhuumanaya markii uu tukanayo haddii aan sheekhu isku dhigto ama aan shaqeeyo laakiin salaadayda aan meel qarsoon iskaga tukado maxaa dambi iga soo gaaraya tan labaad oo su'aalo isku dhow ah gabadha muslimadda ay dhar ku dhagan inay xirato
maxay diintu ka qabtaa salaadaas haddii aan marmar un tukado oo mar kale aan ka tago iyadana si maxaa dembi hoon mudanaya salaada iyo muhiimadeeda waxaan u malaynaya in daris ku saabsan uu jiro marka salaada in marmar la tukadayo in laga tago waxaan uga tegayaa sheekh cali maadaama daris salaada uu kaga hadlayo cumuuman waxaad ogsoonataa muslim macnihiisu waa maxay yaa garanaya muslim aslama waa hoggaansamay ama waa isdhiibay muslim macnaheedu waxa weeyaan kii alle isu dhiibay kii hoggaansamay inaad alle isu dhiibtay maxaa caddaynaya waxaad tidhi ilaah halka ugu fiican baan ogolay inaan maalintii 5 jeer dhulka dhigo madaxaad dhulka dhigtaa salaadu soo maaha madaxu waa halka aanad ogolayn in saxar yari taabto subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okay ah inaad dabad u baxdo laakiin salaada waxaad ogoshay halka inaad dhulka dhigto it means waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hoggaansanaado qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhab u hoggaansanaada hadi waahida salaadaada haddaad meel qarsoon ku tukato horta dee salaada waa saxaysaa intaad tukanaysana muslim khayr badan baad laakiin waxaan jeclahay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto misaal haddii group aad tihiin meel jooga oo macallinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan groupkan muslimiin baanunay meelaan ku tukanno nadiifaanu u baahanay hana la siiyo waxay u badan tahay in laydin siin doono waxaa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rector walba iyo macallin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaabaa kani inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idiin ogolaadabay u badan tahay waxaa jira maanta iskuulla la meel lagu tukado ma dawladdaa tidhi ha la siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rektorkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meel ay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay abi aalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacni isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo rektorkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiinta heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyuunbay dhibtiina u taagan tahay laakiin 10kiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshuu u sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabbin khamre cabbin boodboodin qaylin macallimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhaweeyaan waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhawaystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof quman oo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan oo ay ka tageen waxay ahmiyad leedahay sheekha ka warramay doona meesha madowna waa ku asaxaysaa insha Allah adiga Allah waa ka aqbalaya laakiin waxa aan ka rabaa waxa weeyaan inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadisay inaad qudwo noqoto nabiguna wuxuu yiri man sanna sunnatan hasana fil islam fala wajru wajru man amila biha ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yiri qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisina wuu leeyahay ciddii ku camal fashay ajarkooda oo dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar laydsiiyo ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka waladiina hore xoogani haddaa wadada bannaysaan kuwa iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya daara u taagalaydeen baa imanayo markii hore aan qarsan karaynin laakiin markaa meel u sallaxdeen u hagaajiseen qaar badan oo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi de salaad waa iska fiicanta waa la ogolay iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale kalaaska kugula jirtay Norweejiyada aan muslimka ahayn inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa
inay ku aragta adoo tukanayaan rabaa inay curiosity-gu qaado ay ku weydiisana maxaad la forforarsanaysay baan rabaa iyadu su-aasha ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo tagsiila ah maraykanka ayaa wuxuu yidhi 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiyey buu yidhi tagsiga gudihiisaana shahaada ugu qabtay buu yidhi 58 qof ayaan tagsiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay maxaad ku samaysaa baa la yidhi dadka wuxuu yidhi airportkan dhigtaa tagsiga marka dadku soo fuulun baan cajalad quraana ku ridaa kolay Yurub waliba Scandinavia waa dad yara xidhan laakiin North America iyo meelahaas waa dad aad isaga furfuran cajalad quraanan galiyaa buu yidhi waxay yidhaahdaan waxaan fiican heesaya muxuu yahay markaasaan idhaahdaa buu yidhi waa the last word ka timaada xagga rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yidhi sharaxayga waayo qofkan wuxuu raboon albaabka cid u furta si uu la hadlo uu diin uga la hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa inuu halka ka bilaabo uu diidana cajalada uma saaraa buu yidhi iyaga curious noqdo su'aashay weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahay idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inta Norweejiyada ku aragto ku tiraahdo maxaad sameeynaysaa dabeetana tiraahdo tan salaad baa la yiraahdaa oo ilaahay baa la isugu dhiibo waa caynkaas oo halka uga sharaxdaa ma rabaa saadaradeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel madad dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu a'lam